ومركله iyo barnaamijkeeni macadka maantay waxaan qaadanaynaa isku kalsoonida oo laga yaabo in isku aragti xataa laga haysan isku kalsoonida inta badan waxa la dhahaa waa amaan laakiin mararka qaar koodna waxay noqotaa ceeb iyo hoosayn liidnimo way dhici kartaa in qofba si u arko laakiin guud ahaan in qofku isku kalsoon yahay waa nolosha qofku inuu guuleysto iyo inuu qasaaro barnaamijka qofka hagaya way qeexitaan Zakariya maxaad isleedahay way tahay isku kalsooni qeexitaankeeda maxaad isleedahay waa maxay isku kalsooni qofku naftiisu isku kalsoon yahay waa isla weyn yahay qofka adag ma jiro حاجة يا حاجة وينوسن منها وينوسن عركنا تشوجين ووسن إسكبرين وأنا إنوسن إسلوه حسين هيا أستاذ محمد هلا يا أستاذ وينو قفكوا صفقة هراء وسن فدين صفقة دمنا فدين صح وينو قن كرتها صفقة هراء صفقة دم منا توبر محمد هلا الخطرة هواين قفكوا وحقب اللي هي قفكوا مركزوسا وحقب الله نفتي سكوا مكال صونا توبر عبد الرزاق مع السؤال وحكي بالعمسة إنه مركولات وإلهي وكحرين مسلم إلهي أحسن صوبته مرة كقار كود ضد عن مسلم هاي بنفط هذا كوكل صون بوش وكلا واحد كبير بدن الدون مسلم نما كم جوينا يلاكين مركا أقرأ كرسونينا أكبر عمسة إلهي أنا ثلاث ساعات كده من نفط على هي وصح وجزاك الله خير توني بليرو كلا واحد له وضد أذكر يسوق كل صون بكشرة لكن إلهي ما يقان إله الصح ذا أنا قارنا ما يقان marka kulay waa arin sax ah marka waa inuu labada qof labada geesood isku taariifaan ka balan eegno marka waxa la sheegaa marka la leeyahay laga hadlayo isku kalsooni shayaashana la keenaa qeexitaanka ay leedahay kana lagu sheegaa koow waxa la dhahaa waa in uu qofku isku tashado isagu kalsoonida nafta marka la taariifinayo isku kalsoonaan koow waxa ah inuu qofku asagu isku kalsoon yahay qodobka kalaad oo la sheegay waxa weeye waa inuu qofku tixgeliyo shakhsiyadiisa iyo awoodiisa waa inuu dhaho shakhsi baan ahay awoodna waa leeyahay iyadaas waa inuu tixgeliyo ilaahay baa awood ku galiyay shakhsiyad ku galiyay shakhsiyadaada iyo awooddaada waa inaad tixgeliso waa inuu qofku eegaa oo la socon karaa duruufaha iyo xaaladda uu ku sugan yahay waxay ka mid tahay isku kalsoonida ama nafta qaabka ugu kalsoon tahay xaalad baad ku sugan tahay ha adkaato way adkaan kartaa wayna jilicsanaan kartaa maalin barwaaqaad ku jiri kartaa maalinna waxaad ku jiri kartaa waa maalin adag qofka la leeyahay qofkaasi naftiisa waa ku kalsoon yahay waa qofka labadaasba awood u leh inuu taxamulo labadaas qayboodba laba arimood waa qofka taariifkii aan wali wadnaayo waa inuusan qofku laba arimood midna lahayn waa kii hadda aad sheegayseen Zakariya aanu marinaya taariifka inuu bixiyay waa inuusan ahayn qofku qof xadka ka baxshay isku qancinta naftiisa iyo ku kalsoonida naftiisa oo markaas qofka waxa galaya kibir iyo isla weyni waana inuusan ahayn qof dhulka isgaliyo isla hooseeya oo markaas dul uusan ku dhicinin marka labadaas arimoodba waa iska ilaalinaysa dhexdhexaad iyo labada geesood baa kale istaagaysa shanta qodob baa lagu sheegaa inay tahay isku kalsoonida nafta markii qeexitaan kooban laga bixinayo waa inuu shanta qodob oo qaybood waa inuu qofku ay ku wada leeyihiin maxaa isleedin waa loo baahan yahay si uu qofku isku kalsoonaado hayo Ustaad Raxmaan number 1 geesinimo waa inay jirto koow yaa kale Abdalaan dabeecad wanaagsan waa inuu leeyahay qofku isku kalsoonaado laakiin qof baa jira fulay aan isku kalsoon dabeecadna lagu ma arko waa isku kalsoon yahay ma dhici kartaa fulay isku ma kalsoona wixii soo dhacaba si uga gabanayo soo maaha haye qofka dabeecadda xunna isku ma kalsoona maalin walba wuxuu is leeyahay hada wax laga sheegayay inuu aqoon leeyahayna waa suurtagal markii qofku kalsoonida leeyahay waa suurtagal aqli inuu leeyahay qofku markuu isku kalsoon yahay daki yahay markii uu nafsadiisa wax ku soo dhacay inuu markaas baaqay wax fiican uu hirgeliyo qofku waa inuu hirgeliyo haday wax maskaxdiisa ku soo dhacaan haday waxaasi wax fiican yihiin
wada tashi inuu samayn karo balaan waa wada eegno inta aad sheegaysaan weeyaan saddex qodob laakiin asaas ah la dhahaa oo la isla waafaqsan yahay waa inuu jiro qofku hadaf uu leeyahay dadka aad maqashaan waa isku kalsoon yihiin oo naftiisu kalsooni ku haya hadaf baa jira uu qofkaasi leeyahay hadaadan hadaf lahayn macquul ma aha inaad naftaada ku kalsoon tahay laano maxaad hadafka wax sababta loo dhigan way ma taqaanaa sababta ugu badan oo hadafka dadku u gaari u samaysan waayeen waxa weeye naftiisa kuma kalsoono waad gaari kartaan isma lahan tusaale ahaan ninba hadafkiisu waxay tahay inaan noqdaan raba qofka Kenya ugu lacagta badan haddaadan naftaada ku kalsooneen ma dhigan kartaa qorshaas ma degsan kartaa may qodobkaasi waa koow laba waxa weeyaan waa inuu qofku aamino awoodda uu leeyahay awood baa Ilaahay ku gashay Ilaahay adduunkan kuma keenin macna darro inaad jeertay waa inaad awood aad leedahay waa inaad aamintid haddaad awoodaadan lahayn aamintid aadan awoodaada leedahay haddii Ilaahay ka qarsho maxaa u malaynaysaa maroodigay dhihi jireen maxaa Ilaahay ka qarshay awoodiisi awrkana awrta waxaad arkaysaan ilmo yar baa inta u imaanayo hoggaan ku ridanaya maxaa laga qarshay awoodiisa ilaa iyo goormeena ku egta ilaa qiyaamo waasaas awr waad aragtaa wiil 9 jir u imaanaya xarig buu qoorta ka gashanaya aad buu maanta dhanbar fariisinaya mar kicinaya awoodiisa alla ka qarshay maxaan awr ugu maahmaahaya qisadii waxa taqaaneen caanka ahayd ninkii maskaxda ka jiraday oo masagada isu maleeyay wuxuu iska dhaadhiciyay inuu masaga yahay ama digir hadba saa u taqaanaa digirtana waxa caan ah iyo masagada iyo digaaga cuna mar alla markuu digaag arko orod buu isqabanaya marka waana nin weyn wuxuu ka baqayaa in digaagu cuno dhakhtar baa loo geeyay maskaxda dhakhtarkii baa dawo looma qori karo wuxuu yiri aniga ma maqlaysaa aniga saacadan laga bilaabo anaa ku sheegaya adiga ma tihid masaga ma tihid qof caadi ah taa Ilaahay baa ku abuuray digaagana kuma cuni karo waa ku kaas orod guriga aad xaafadda loo kaxeeyo yiri xaafadii markii la geeyay maalmo kadib buu asagoo nin kale la socdo qaraabadaaba wuxuu arkay digaag orod buu isdhiga dhakhtarkii baa loo soo laabtay waxa dhakhtar ninkii ma biskoon maanta digaag arko ka carara iiso cushu yiri wuxuu yiri wadaan saanu maalin kale kuma oran digaag mati baalkii digaag kuma cuni karo masaga mati qof ibn aadan taasoo kuma dhihin soo yiri ha dhakhtar laakiin digaaga laftiisa umaad sheegin buu yiri inuu cuni karin aniga kaliya ay sheegtay marka digaaga wali kama warqabiyo inuu cuni karayo in kale ilaa iyo maalinkiina saas uga cararaya maxaa qofkaas alla ka qarshay awoodiisa isku kalsoon la'aanta marka qofka waxa weeye waa inuu aamino awoodda Ilaahay siiyo qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan waa inuu qofku leeyahay go'aan waana inuu aaminsan yahay inuu go'aankiisa ka meel gaari karo saddexdaas baa waxa la dhahaa asaas bay wax u yihiin qofka isku kalsoonida naftiisa kow waa inuu qofku gaari karo waa inuu qofku hadaf leeyahay oo aaminsan yahay hadafka inuu gaari karo waa inuu aaminsan yahay awoodda alla gashay waana inuu aaminsan yahay waana inuu go'aan gaari karo una aaminsan yahay go'aankaas uu gaaro inuu mira ka dhalin karo marka hadaadan aduu naftaada ixtiraami cid ku ixtiraamaysa hal tusaale ayaana siinay tusaale taaban karo xayi ah adiga waxbaad baratay dib badan baad soo martay secondary primary baa ka baxay secondary baa qaadatay degree baa qaadatay master baa qaadatay PhD baa qaadatay dadku soo ku dhahayaan oo ku ixtiraamayaan waxba maad baran adaa naftadaada isaa ka dhigay ever 60 baad gaartay adoo saas ama ku ixtiraamayaan dadku sidaas marka waxaad ogaataa qofka aduusan asagu is ixtiraamin cidna ma ixtiraamayso waa qodob meel Soomaalida waxay dhahaan maama caam ah oo meel alla meesha rabtay loo adeegsan karo arinta ka waramaysan maamadaas maxay leedahay si walba shililka isdhigta lagu qalaa maamadaas ha u moodinina riri in laga hadlayo adiga alla maanta oo dhan laga hadlaya adiguna ribaad u qabtaa xaafadiina jirta ha meesha marka adigu aad isdhigtid iyo qaabkaad isu qiimaysid baa dadku ku qiimeynaya labo waxa ka faa'iideysanaya dadka kale haddii aadan adigu naftaada qiimeyn waxyaalaha caanka ah waxa kamid ah dadka kale ka faa'iideystaan nin baa ku imaanaya halkaan iska soo xiraya wuxuu ku leeyahay xaafadan waxa laga rabaa inaad caawo dhan ku wareegtid amaankeeda sugtid asna waa seexanaya waligiin ma arteen horta ha idinka ma tiidin sax idinku waxa tiin qoladii dhihi lahayd qolada waxa rabtiin inta meesha fadhida qolada waxa rabtiin rabta inaad dhahdaan meesha la soo wareegana waa seexanaya laakiin waxa jira dad saas oo kale loogu shaqeysta 24 saac nimba inaga Soomaali ahaan nimba xaaskiisii caruurtiisii reerkoodii oo dhan wuxuu dajinayaa wadamo kale oo seef amaana laakiin reeraha caruurtooda muxuu sameeynaya wiilashooda waa ku shaqeysanaya maxaa marka koox xagee dhibaatadu ka timid isagu dibkiisi waxa weeyaan waxa ka faa'iideysanay cid kale ma la fahmi sidaas may tahay waxaad arkaysaa nin qaybta dambe fadhiya nin baa wuxuu u fadhiyaa banaanka iridka
bud inta leeg buu hayaa wuxuu leeyahay qofna hayso gal waliya bilaada arkeen saddex bari kadib soo laabo laba ninna yaa weyn labadooda waxa u badan tahay inuu asagu weyn yahay kan gudaha ku jiro lagu xareysan oo gudaha ku xareysan oo maanta oo dhan safka loogu jiro aad lagu leeyahay barba mid soo daa adiga hooyaa ku dhashay 9 bilood baa ku dhalatay asna 9 bilood laakiin asaguna muxuu sameeyay naftiisu qiimeeyay adna naftaadi baad qiimaha u diiday marka waa tii ahay ri walba shililka isdhigtaa lagu qalaa ugu dambayntana haddii taas laga waayo qodobka saddexaad waxa weeye waxaad ku nooleynaysaa intaad adduunka ku nooshahay noolal hoose aakhira marka la gaarana wallahu a'lam anagu wala nuzaki ala allah ahadan laakiin qofka naftiisa adduunka intuu jooga qiimeyn waaya aakhira qiimo kuma leh laano adduunka iyo aakhirada waxa laga rabaa isku si qofku inuu uga faa'iideysto adduunka qofka wax ku ah oo ilaahay sana xiriir fiican la leh mujtamaciisana wax ka ah waa meesha nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka waxa ugu khayr badan qofka ugu anfac badan kaasa marka ka faa'iideysto kaabayaal baa jira 8 oo ah ka qayb qaata kabiibaalkii kalsoonida nafta 8 kaaba wayo si kooban ma u sheegayna kaabaha koobaad maxaa lagu yiri kaabaha koobaad muxuu leeyahay hal shay qorshayso oo siday tahay u fuli hal shay salahan aan isiyo qof baa wuxuu go'aansaday inuu qoraan noqdo بالمناسبة محمد نوري ومحمد عري ونلتش وقدر بدل ما أنت وحقرة واحد ربطة إن نقطة قراء واحد قرطي شيكا كوبان صدق يتوان بيج كوب يتوان بيج كوب يتوان كبيج جو أنسو كوب يتوان بيج وفي عن كدق صار دابع بنانك كين محمد كوحي شيء يسمى تقانا بقول يوم يقوى كانوا صدق يتوان بيج قرالك كوحي كم يقول نقونا يا بقول يسدم بيج لأنه واضح بتاعنا وحقوري كرت سوانا ساري كرت كان كل حاجة إنتين نقونا يا كون يصدح بقول وأقدر ما واحد صو ساري سال لباتن مجلد ها لكن معك بالعبي ساعة إيش أقوله سيسل لكن كافلي واحد ولقى واحد شعر دينا معلم النقطين هل ما دابروا ما ده وش سوا ما ده معلم ما دوينك حساب عندهم ما يلا وكون ما دوينك كون بيكوشرتاه حساب ده وحياة أساسية وإسكا كوبان حسابات واحد كم يدين حساب ما دوينك وقعدك ساسنا آمنة انت ان معك اسلتونا وين انا امن اني كميت حسابته وحيالها ugu jilicsan laana isma badasho ha theory-na ma lahan aaraa kala duwan 1 + 1 waa 2 waliga adduunka dhan Pakistan saas u kaya Faransiiskana saas u kaya Soomaaliyana waa saas Malaysiana waa saas soo saas ma laakiin aragtiyaha kala dhan maadooyinka kala dhan aragtiyaha ku jira waxa lagu leeyahay marka sheegtaa lagu leeyahay nadariya kada baa jirta theory kada baa jira soo saas ma akul doy marka هذا ربطنا معلم باتشعر ولا أنا نقطين هل مادة ير أو مادة ربطها نقطة إذا كنت أديك مسك مساحة كتيرة هل مادة حفظي مالك أنت هذا نادين عيالك حافظة تشوق توشن فري يولي همين كاس معلم ما نقط قلب كلاباتنا واحد ويان مسؤولية استثار قلب كلابات عن ربقفك واحد ويان أنت مسؤولية بس قلب كلابات كاسوها وبرهال يرو أرهم قرشة قلب كلاباتنا واحد مسؤولية قفك إنه استثاره مسؤولية مركز استثارتين أو مسؤول إسكدكتين ما لقى يا باين أن الله شاد هو سودكتين وحوس ما يسوق ورطة بالمثل واحد إسكد عادي عسي حافظ دم وإسلي الشيخ بعد كته كو وحيل علينا يساق دقن كاجا حتى شهم بيل بنان كوع بميسي ضدك حن لفريسين ميسي وقت كاجا وحساب تمام لأنه محاربته واحد آمن سنته أنا شيخ تهاي هذا لكن آمن سنته يقف بأي مرة سوحرن ميسي شن ليسن ميسي مقيس نرش ولا بكر عيسى مرة قلب كلامنا وام حيقف إنه مسؤولية استثاره واحد آمن سنته إن أتكمل تاعي ضدك حافظ دان سي عادي واحد فاهم كناس كلام عندنا حافظ دان ضدك أقوم مسؤول سنة أقوم معقول سنبات عند جيعك واحد أنا سنه دنا كلام كفير شو واحد تهاي قفك مسلمين تمتله هذا لا آمن سنته إلى مسلمين تمدش سياس كده جيسا أد بسؤول علينا يسا قعنت هذا وحكي بحين يسا قفك أرتي توكسنا يوم مذوة وحاس لذا إسلام كهسوق الله بكون يشم قلب بكون يشين يسا ها ما حد درين سنته هاي مسؤولية بس درين سنته هراي قلب كسدحات وحوي هراي وتلابسه هنا كعب سنين تابنا واحد كعب سنة يسيب ولا ما أرتي واحد ماشى كعب سنة يسيب تاب هرت هراي وسعكو وحيالها العبسيدة كوها هاي سنة سماه واحد كعب سنة صرت تصالح عن إنه وانس سنة دتك إن أنت سوي استعجت له هذا الشيء ما نسوق وانسو واحد لده هلا يماذا ما أنت كبريه واحد كهذا يا تقوى هل يسوي ماذا هل كان أنت استعجت تقوى كسيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته كبلوا لما ما الموت بعد جرجري لسه مالك سد حالنا بسوس عرورة الليلة مع الأيد أفر قلب كلبات وحوي هراي وتلابسه هنا كعب سنين تابنا واحد كعب سنة يسيب مسؤولية بس درين سنته مسؤولية بس درين سنته
noqo qof firfircoon suurtagal ma inaad isku kalsoonaatin adoon firfircoonayn qof firfircoon noqo dadka dhexgal dadka la hadal qof wax dadka ku soo siyaadiyo adduunka rabo inuu wax ku siyaadiyo noqo haddii laakiin aad aaminsan tahay qof raakido iska fadhiyo waxba soo siyaadinay tahay naftaadana kuma kalsoonid maayo naftaada haddaad ku kalsoon tahay waa dhaqdhaqaaqi lahayd waxaad aamini lahayd inaad wax soo siyaadin karto 6 maalin walba naftaada uga sheekay wax wanaagsan 5 aan dhahe maalin walba naftaada uga sheekay wax wanaagsan maxay tahay waxaan noqon karaa milyaneer waxaan noqon karaa sheekh waxaan noqon karaa dhakhtar waxaan noqon karaa maamulaha adduunka ugu maamul fiican ibraahim fiqi oo kala noqon karaa ha maalin walba naftaada wax fiican uga sheekay sheeko beena lama rabo tanqaadka kale inta hameenkii oo dhan wax fiican laga sheekaynayo subaxdii burburta waxa la rabaa inaad isku wadid inaad ugana sheekaysid naftaada sidoo kalena ficilkiisa sii socdo maalinba maalinta ka dambaysa uu isbedelay isweydii qodobka 6aad isweydii maxaad maanta qaban kartaa oo berri ku anfacaya noloshaada maxaa wax ka bedelayo aad maanta qaban kartaa waxa suurtagal ah maanta inaad haysatid 4 saac oo jaanisa oo aad juz quraan soo xifdii kartid ay berrina ku anfacayso dhalinyaradii halkan Nairobi nala joogi jirtay Yurub iyo hadda America iyo Canada iyo markay tageen waxa ku leeyahay war cirna Nairobi ma joogta ha quraanka soo xifdi inta aad soo bixin Lubnaanin ba waxa ku leeyahay qof quraanka xifdisan baa rabnaa 10 kun oo doolar baan siinayna wuxuu rabaa inuu hadda Nairobi ku soo laabto quraanka soo xifdiyo marka waxa berri ku saamixi karo wax un ku ogolaanaya maanta samee qaar ba wuxuu ku leeyahay laysin hadda samaysan la waaga islii joogay hadda laysin qaado qaar ba wuxuu ku leeyahay taraak hadda gaariyaashan waaweyn haddaan baran lahaa beeraha haddaan baran lahaa baambiskiga dharka baalka muxuu ahaa korontada iyo guryaha haddaan gelin aqoon lahaa intaan islii joogay haddeera joogtaa waxaad ka fakartaa maanta maxaad qaban kartaa oo berri qiimo ku yeelaya qodobka 7aad waxa weeye kor u qaad noloshaada iyo muuqaalkaaga hagaaji laba shay baad haysataa hameenkii markii la seexdo dadka dhan gamaan inta dhaqatid oo feereysatid subaxdii waxaad ku soo baxday iyaga maxaa ka galay weliga muuqaalkaaga hagaaji haddii muuqaalkaaga xun yahay qof baa lagu baraya ninkan waxaa la dhahaa warsame jaamacadda adduunka ugu qaalisan buu ka soo baxa haddii aragtid surwaalkiisa qaybta hoose oo dhan ka madow dus bas kaga taalla qaybtaana xanja kaga dhagan tahay maxaad dhahaysaa kan xanjadu ku dhaganta aniga waxay tari mahayo soo suurada qaadanaysi maaha weligaa ka taxadar naftaaduna qiimo fariin bay u diraysaa ay leedahay qof walba muuqaalkiisa inta uu yahay bay ku xiran tahay kalsoonida naftiisa qodobka ugu dambeeya waxa weeye tala saaro Allah subhanahu wa ta'ala laano taradaadan ilaahay tala saarnayn walwal baaba ku dilaya daad way bay dadka adduunka maadadan ka hadlo dhan aakhirka waa isdilaan maxay isu dilayaan ilaahay ma tala saaran dal Carnegie iyo dadkii ugu caansanaayo maadooyinkan wax ka qoray arrimaha bulshada iyo horumarinta way iswada dilaan aakhirka haya intaas aan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena maanta aan kaga hadlaynay sida nafta loogu abuuro kalsooni barnaamijkan barnaamij la mid ah intaan ku kulmi doono waa dhamaanteen oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh